waxa maanta lagu arkayaa baraha bulshada dad aan siyaasadda xogogaal u ahayn oo faahfaahin khaldan ka bixinaya maqnaanshaha shirka golaha wadatashiga qaranka Soomaaliya oo ka maqan yahay ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre siyaasaddu saamaha qoliyaha ku dhagan oo commentiga ku raadinaya ra'iisul wasaare Xamse waxaan rabaa inaan wax yar xasuusiyo siyaasaddu inaysan ahayn wax adeer iyo abti laga bowsado oo ay tahay xogogaalnimo iyo xog la raadiyo ra'iisul wasaaruhu kuma khasbana shir ay madaxtooyadu qabsatay madaxweynaha qaranka ayaa casumay shirkan golahan aad u jeedaan isaga ayaa casumay ujeedada iyo qodobada ka soo baxana waxa la horgeyn doonaa baarlamaanka iyo xukuumadda saaxiibayaal ra'iisul wasaaruhu xukuumadda ayuu ka mid yahay oo ugu sareeya ha degdeginina ma aha ra'iisul wasaaraha wax kasta oo dalka ka khaldama in isaga tuurta loo saaro dalku madaxweyne ayuu leeyahay ra'iisul wasaaruhu leeyahay golaha sharci dejin ayuu leeyahay golaha aqalka sare ayuu leeyahay ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha golaha shacabka saddexdu way ka maqan yihiin dhalinyartan siyaasadda ku saaqiday oo ku maran habaabtay waxaan idin leeyahay hubsada oo sooyaalka taariikhda dib u raaca ra'iisul wasaaruhuna xasan kama liito madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa la isaga dhex baxo shirkana hala dhowro waxa ka soo bixi doona shirka ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah waxaana moodaa madaxweyne xasan sheekh inuu ka dhabeeyay qorshihiisii ahaa Soomaali heshiis dunidana heshiis la tan ayaa tusaale kuugu filan balday siday Soomaali isugu wada jeedo ku soo dhawaada wakaaladda wararka ee Kilwa Media waxay maanta falanqeynaysaa siyaasadda dalka iyo arrimaha ka cusub Soomaaliya Puntland Jubaland wararka maanta idin hayna waxa ugu waaweyn madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isku dubaritay siyaasiyiintii ugu saameynta badneed Soomaaliya kuwaas oo isugu yeeray shir wada tashi ah ayadoo ay Soomaali ka wada dheregsan tahay halka uu marayo khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani dhanka kale warar hoose oo wakaaladda wararka Kilwa Media helayso ayaa tibaaxaya in uu wada hadal qarsoodi u socdo madaxweynaha qaranka iyo hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyagoo maraha dadka isugu dhow siyaasadda Soomaaliya xilligii ololaha doorashada waxa maanta lagu arkayaa baraha bulshada dad aan siyaasadda xogogaal u ahayn oo faahfaahin khaldan ka bixinaya maqnaanshaha shirka golaha wadatashiga qaranka Soomaaliya oo ka maqan yahay ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre siyaasaddu saamaha qodobada ka soo baxa shirka wadatashiga ayaa la horgeyn doonaa golaha ra'iisul wasaaruhuna golaha ayuu ka mid yahay oo shir ay madaxtooyadu qabatay inuu ra'iisul wasaaruhu ka qayb ka ahaado waxay ku xiran tahay heshiis qoliyaha ku dhagan oo commentiga ku raadinaya ra'iisul wasaare Xamse waxaan rabaa inaan wax yar xasuusiyo siyaasaddu inaysan ahayn wax adeer iyo abti laga bowsado oo ay tahay xogogaalnimo iyo xog la raadiyo ra'iisul wasaaruhu kuma khasbana shir ay madaxtooyadu qabsatay madaxweynaha qaranka ayaa casumay shirkan golahan aad u jeedaan isaga ayaa casumay ujeedada iyo qodobada ka soo baxana waxa la horgeyn doonaa baarlamaanka iyo xukuumadda saaxiibayaal ra'iisul wasaaruhu xukuumadda ayuu ka mid yahay oo ugu sareeya ha degdeginina ma aha ra'iisul wasaaraha wax kasta oo dalka ka khaldama in isaga tuurta loo saaro dalku madaxweyne ayuu leeyahay ra'iisul wasaaruhu leeyahay golaha sharci dejin ayuu leeyahay golaha aqalka sare ayuu leeyahay ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha aqalka sare gudoomiyaha golaha shacabka saddexdu way ka maqan yihiin dhalinyartan siyaasadda ku saaqiday oo ku maran habaabtay waxaan idin leeyahay hubsada oo sooyaalka taariikhda dib u raaca ra'iisul wasaaruhuna xasan kama liito madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa la isaga dhex baxo shirkana hala dhowro waxa ka soo bixi doona shirka ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah waxaana moodaa madaxweyne xasan sheekh inuu ka dhabeeyay qorshihiisii ahaa Soomaali heshiis dunidana heshiis la tan ayaa tusaale kuugu filan balday siday Soomaali isugu wada jeedo shirkan waxa qayb ka ah oo lagu casumay ra'iisul wasaarihii xafiiska baneeyay ra'iisul wasaare Khayre waxa goob jooga gudoomiyihii hore golaha shacabka mudane Jawaari waxaan ka maqnay ra'iisul wasaarayaashii hore oo ay Puntland ka aadeen ra'iisul wasaare Cabdiwali Cali Gaas bariyahanba waxa dabku ka holciyay Soomaaliya arrinta dabka ayaan wali xal loo hayn wala seexan dab baa kacay baad maqlaysaa Soomaaliya iyo dariska Soomaaliland waxa gubtay suuqi waahan oo aan cid wax iska weydiin in lacag loo soo ururiyo maahan jigjiga ayaa ugu dambeysay waxa gubtay suuqi weynaa ee ganacsatada Soomaalida magaalada Boosaaso waxa ka dhacay laba dhacdo oo aad u xanuun badan
dhacdadii hore waxay ku dhacday shirkadda Almacruuf oo aan cidina wax iska weydiin oo weli ka soo kaban lahaa khasaarihii gaaray sida ka muuqata meelahay ahaan jirtay meheradu habeenkii xalay waxa hal mar salaada ka hor jug weyn laga maqlay suuqii korontada ee fadhisame oo ilaa saaka isagoo ololaya sawir laga soo qaaday goor dhaweyd magaalada Kismaayo waxa dab ka kacay kaala shidaal oo ku taala iska Olympic arrintan miyaanay mudnayn inaan dabka la damin oo lagu mashquulin in wax loo soo ururiyo in cilmi baaris laga sameeyo cidda dalka gubaysa bal daawo tani waa jigjiga tani waa Boosaaso tani waa Hargeysa tani waa Kismaayo Soomaalidu ka hortag ma laha ka daba tag bay leedahay haddana waxaan moodaa ka daba tagi laftigiisa inay ka tanaasuleyso sida ka muuqata dhacdooyinkiisa daba joog ah ee ka dhacay Puntland magaalada Boosaaso suuq ayaa weerar lagu qaaday oo la gubay waxba la iskama weydiin arrintaas waxay u baahan tahay in il gaar ah loo yeesho waxa la weeraray xabsiga weynaa ee magaalada waxa laga sii daayay maxaabiis kor u dhaafaysa 300 cid wax iska weydiisay ma jirto waxa cabasho ka muujiyay qaabka cashuurta u bixiyaan ganacsatada magaalada Boosaaso oo dekadu ay xirreed 2 maalmood iyadana cid wax iska weydiisay ma jirto waxa banaanbaxaysu ku soo baxay magaalada Boosaaso wadooyinkeeda waaweyn dad kalluumaysato ah oo xoogsato ah ilaa hadda ma jirto dawladdu aysan ka hadlin waxa dhacdo xanuun badan oo ka dhacday caasimadda Puntland ee Garow dad ayaa dhintay hanti ayaa burburtay dawladdu wali waa ka dhagalaada arrinkaas arrin dawladnimo ma dalku wuxuu u baahan yahay ka hortag iyo ka daba tag ee uma baahna sawir joogto ah iyo tacsiin aan waxba ka dambayn marka laga tago saraakiisha amniga iyo gudoomiyaasha degmooyinka ay wax ka dhacaan Puntland ma jirto mas'uuliyad weyn oo ka soo baxda dhanka madaxtooyada madaxweynuhu sanadadii dambe wuxuu caadaystay inuusan ka hadlin dhacdo kasta oo Puntland ka dhacda ama ha weynaato ama ha xanuun badnaato ama meel dhaxal iska ahaatee waxaan moodaa inaysan wax dareen aysan ka lahayn wararka wakaaladda wararka ee Kilwa Media duhurnimadan maanta halkaas haynoo joogto wixii ka soo kordha Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya waxaan idin kula wadaagaynaa halka waa ku mahadsantiin daawashadiin